بسم الله وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ودرسي صدن إلى اللبو كتاب كأني الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمه الله وعن الرجين إنه النقضو كان قدام بي كتابك إن شاء الله تعالى عشر كي قدام بي وحو شيخو كهذا لي رحمه الله حد قفك زنذا كرغما الزانق حديثو waxay ka adag tahay xuduuda kale oo dhan saddex arrimood bay kala gooni tahay. Horta waa marka koowaad ee qatliga qaabka loo dilaayo hadduu muxsin qofkaasi uu yahay qofkii meher soo ritay waa kala yiri dhagaxa lagu dilo. Marka waa dilka ugu adag weeye oo qof binu aadama in dhagaxaan dhinacyada lagala maro lagu garaaco ilaa naftu kaga baxdo waa dareemi kartaa inta ay dhibaato leedahay. waxaase la yaab leh in la yidhi raxmad xitaa ayayna idiin qabanin baa la yidhi naxariis yayna idiin qabanin waxyaabaha hadda adduunka iyo gaaladu ay buunbuuniso see qof dhagax loogu dili sidee loo fi marka layleeyahay oo arrintaas aada looga hadlaayo yacnii qof uun sida loogu garaaci ku dhimanaya laakiin la yaab waxaa inuu rabbi ka hadlay uu yidhi raxmad yayna idiin qabanin qofka isaga wuxuu sameeyeyba adag intaa keliya ma ah kii dhalinyarada ahaana isagana in la karbaasho haddana la masaafuriyo oo laga kaxeeyo gobolkii iyo magaaladii wadankii uu joogayna waa laga masaafurinayaa. arrinta saddexaadna waxa weeyaan mashhad mu'miniintu ay joogaan oo dadku ha ka soo qayb galaan baa layidhi marka la dilaayo ha laga soo qayb galo wax la qarin yuuna noqonin ha laga soo qayb galo oo ha la arko waa xumaa yacni arrin aad iyo aad ummadii looga celinayo wey in hawsha ayadaa ku dhacaan. طيب من أنفع الطرق لعلاج الشهوات شهوة وحالة إذا وحيابها حسمي جاد إيو ووفي عن إن لحسميو مرك هربا إنتي أينن حصول كادو إيمانين إن لسكودي إن لعليو هدي تمادنا لزوليو وحيابها طرق ذا لود دوية وحاوبا نوا غض البصر وإن لها لابد هذا إيا قلبي قولو مشغولية وحكله in qalbiga lagu mashquuliyo indhahana la laabo waa waxyaabaha ugu fiican min anfaci turuq licilaaji shahawaat buu yidhi ibnu qayim yacni tan ugu nacfi badan dariiqa ugu fiican oo shahwada lagu cilaajiyo lagu daweeyo waa gadulbasar waa in indhahana la laabo iyo ishtigaalu lqalbi qalbigana lagu mashquuliyo wax kaa fogeynaya shahwadii. ayib haddaba gadulbasar laabidda indhaha la laabo manaafic badan ayay leedahay ayuu yidhi ibnulqayim raximahullah. manaaficda waxaa ka mid a ilaahay amarkiisii ood qaadatay iyo in sahmulmasmuum waxaa weye leebka sumaysan oo qalbiga dhaawacaya in isagana uu qofkaasi isaga ilaan qofkii markuu sawiradii hadda la fiiriyo waxaanad aragtay internetka iyo beleda ku wada jira ee mawaaqicdan ibaaxiga eh wada maaragtay qaawan la fiirsanayo qofkii waxaa gaadhaya sun leeb sumaysan baa qalbigiisa ku dhacaya marka taasuu ka badbaadaya hadduu indhihii uu laabo qalbigiisana wuxuu dhexashiinayaa ilaahay inuu subxaana watacaala uu xusuusto ilaahay rabbi subxaana inuu qalbigiisu xoogaysto inuu faraxsanaado inuu nuur ilaahay subxaana watacaala ku arsaaquu siiyo shujaaca iyo thabaad ilaahay inuu siiyo sugnaan uu siiyo xaqa inuu maaragtay ku kalsoonaado shaytaanka madaakhishiisa meeluhu kasoo geli laha inuu ilaahay ka xidho waxyaabahaasoo dhan baa kamid a fawaa'ida laga helayo oo qofkaas isaga uu helayo. ayib waxaa kaloo soo raacaysa iyadana insha allahu tacaala diinta waxaa la yidhahdaa addiin huwa alطaacatu walcibaadatu walkhuluq yani diintu waa cibaado iyo daaco iyo akhlaaq walidaalika ayuu rabbi la wainaka lacalaa khuluqin cadiim wuxuu yihi ibnu cabaas yacni lacalaa diinin cadiim diin weyn ayaad ku sugan tahay marka diintu oo la ururiyey baa waxaa lagu cabiray inay tahay daacada iyo cibaadada iyo khuluqa ah insha allahu tacaala ilaahayna waafajiyo kadibna dib baan kasoo sheegi doonaa kitaabka kale aan bilaabayno wajazaakum allahu khayr wabaaraka allahu fiikum wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.